kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo waraysi halkan aan kaga qaadi doono Sihaan Ismaaciil oo ka mid ah markaasi dhalinyarada haldoorka ah ee reer Somaliland Sihaan baan ku soo dhaweeyay marka hore soo dhaweeyay ku leeyahay waan dhawahay walaalo waanad ku mahadsantahay sadiigu soo dhaweysay barnaamijkan waan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaligeena soo siiso iyo inaad naga qolaato waraysi ka qaadno waxaan su'aalaha ka weydiin doonaa nolosha qoyska oo markaas ay dadku in badan ku wareersan yihiin oo nolosha qoyska Sihaan maxaad ka aaminsantahay wallaahi horta marka horeysa nolosha qoyska horta aad bay wanaagsan tahay dawayna iska caqabad badan tahay marka dee waxa wanaagsan labada qof ee nolosha wadaagaya feerastigan isku kalsoonaadaan marka labada qof ee isku kalsoon baa qoys dhisan kara aad marka inta badan waxa jirta caqabado waaweyn oo markaas qoysaska soo ristaaga dadkuna inta badan waxay caqabadahaas ku tilmaamaan inay tahay ama dhinaca ninka ka yimaado ama dhinaca inanta ay ka timaado caqabadu inta u badan xagee ka timaado kulata caqabadka inta u badan horta aan soo aaminsanahay dhanka nimanka ay ka timaado nimanka ka timaado maadaama dumarkay guriga joogaan oo dee waxyaabo badan dee hawlo badan ay guriga ka hayaan oo nimankiina ay dibadda hawlo badan iyaguna ka hayaan saasay tahay caqabadka ugu badan dee dhanka ragga laga kulmaa maxaa u soo wada iyada malaynaayay aragtidaada dee horta wallaahi bilaa haddaan su-aasha isku dayo aniga Sihaan ahaan fikradayda waxa u sababa dee labada qof oo horta kalsooni darro ka dhex dhalato marka horeysa iyo aaminaad darro marka wakaas soo on karo maadaama rag u badan yihiin waxa horseedi kara dadka bilowda oo kale in dadkaas ay qoysaskoodii ay si fiican dhaqan waayaan sidii gabadhu ay ka rabteen ay u socodeen waa caqabada ugu weyn horta nolosha qofka bini'aadanka ka hor timaada marka noloshaada la wadaagto nin balwad leh marka balwadadkuna way kala badan yihiin marka ragga jaadka cuna xakan waxa uga soo jeedinayaa inay dumarkooda ka warhayaan iyo caruurtooda ay balwadaha iyo xaasna iska dhaafaan mas'uuliyadii laga rabay ka soo baxaan marka waxa laga qof qaal cunaya mas'uuliyad ma qaadi karo balwad ma qaadi karayo sida aaminsanahay anigu 100% ما شاء الله أبو وصامرتي قويس يوحس الحمد لله وصامر قويس يقفلن وقت هذا قرح بدن وصامر إيه وقت هذا حنون بدن إما كانوا حيتشوا قاعد الدنيا ذكرت إيه صارن إلهي دعفي لبوي هذه أدوى مع سنتهاي ودنبنتي وحفرنا وحكا قدرسا قويسيس كصوماليات مجران maadaama maxkamadaha hadii aad tagto meelaha hadii aad tagto aad arkayso laba qof oo isku jira oo midba midka kale ka caawinayo waxa u jeedaa farinta diraysa maxay tahay farinta u diraya qoysaska horta waxay tahay in horta markuu horeysa caqabadka hadii xaq ragga ka imanayaan lagu kalsoonaado nimanka oo de wixii dhexda ku jiray iyo wixii khilaaf dhexdooda ka jira la xaliyo oo la isku dulqaato aad macsan tahay wana kala macnaysaan waqtiga qaaligeena soo siisay iyo sida noo shartay aad baa macsan tahay kala soco sida heesaa barnaamijyada iyo wax walba cusub kala soco kuna xirno